kulankii ugu adkaa tan iyo markii uu bilowday tartanka Ramadan Kulmis Cup oo sanadkii saddexaad lagu qabanayo garoonka Salaxa ee Kulmis ayaa shalay waxa uu dhexmaray kooxaha kale ah Kacaldooyo FC iyo FC Halkan oo ku wada jira Group B oo shalay furmay. Kulanka ayaa sidoo kale waxa uu soo daawasho degay taageerayaashii ugu badnaa oo garoonka soo xaadiray waxaana uu ahaa kulan xiisihiisa waday labada kooxood ayaana inta uu kulanku socday waxa ay soo bandhigeen kubad loo riyaaqay iyadoo kooxda Halkan ee uu hogaamiyaha u yahay macallin Abshir Tigo ay ka soo muuqdeen xidigo isugu jiray Serie A iyo sidoo kale heer degmo kuwaasi oo caan ka ah gudaha degmada Karaan kuna darso kooxda FC Halkan ee uu hogaamiyo Abshir Tigo waa kooxda difaacanaysa tartankii Ramadan Kulmis Cup ee 2024 walow xilligaas uu ku ciyaarayay magaca Al-Mustaqim oo uu sanadkan iska bedelay. Kulankii shalay ayaa ku bilowday jawi degan iyadoo kooxda Halkan ay ku bilaabatay kubadka kaab isku dhiib ah inkastoo kooxda Kacaldooyo FC ay ahayd koox taxaddar badan wajinaysay isla markaana haafkooda ilaashanayay. Daqiiqado kadib bilowga qaybta hore waxaa laba gool oo degdeg ah la timid kooxda Kacaldooyo FC oo ka faa'iideysatay baas qalad ah oo ay sameeyeen xidigaha kooxda FC Halkan balse xidigaha kooxda Halkan oo si fiican chance iskula helay hurdadana ka kacay ayaa saddex gool oo degdeg ah waxay ka dhaliyeen kooxda Kacaldooyo FC. kulanka ayaana waxa uu noqday 3-2 balse kooxda Kacaldooyo FC ayaa la timid goolka barbaraha inkastoo dhamaadka kulanka qaybta hore laga dhaliyay laba gool oo degdeg ah. kulanka ayaana qaybtiisa hore waxa uu ku soo dhamaaday 5-3 oo ay hogaanka ku haysay kooxda FC Halkan. qaybtii labaad ee kulanka waxa weerarka iyo sidoo kale baasaskaba halkeeda ka sii waday xidigaha kooxda FC Halkan oo si fiican chance isula helay waxaana u suura gashay in 4 gool oo kale qaybta labaad ay ka dhaliyaan kooxda Kacaldooyo FC walow qaybta labaad dhankooda laga dhaliyay laba gool. kulanka ayaan ugu dambeyn waxa uu ku soo dhamaaday 9 gool iyo 5 gool oo ay ku adkaatay kooxda FC Halkan ee uu hogaamiyo tababare Abshir Tigo oo ambidina kulankii sideedaad tan iyo sanadkii hore ee 2024 waxaana sidoo kale xareysteen dhibcii ugu horeeyay ee groupka B ee sanadkan. dhinaca kale kulan ka tirsan groupka B ee tartanka kooxaha waaweynka ayaa kala doox u dhexmari doona kooxaha kale FC Neto iyo Modern Football. kulankan ayaana waxa uu bilaaban doonaa 10 saac bar galabnimo. sidoo kale waxa kala dal ciyaari doona kulan ka tirsan groupka B ee tartanka kooxaha yararka kulankan ayaa dhexmari doona kooxaha kale Al Yaqin FC iyo FC Kadixir waxaana kulankan bilaaban doona 9 saac bar galabnimo. dhinaca kale waxa maanta bari la ciyaari doona kulankii ka tirsan groupka B ee shalay baaqday. kulankan ayaa waxa ku wada balansanaa kooxaha kale Star Academy iyo Modern City balse wuxuu u baaqday amar diidmo guddi oo ay sameeyeen kooxda Modern City waxaana xalay laga soo saaray go'aan cad iyadoo gabi ahaanba tartanka laga saaray. sidoo kale waxa tartanka laga saaray kooxaha kale Modern City Team iyo Modern Football oo ku wada jira Group D ee tartanka kooxaha yararka waxaana boosaskooda lagu bedelay kooxaha kale FC Ceelka iyo Al Musbah. dhanka kale waxaa xalay iskuadkii ugu dambeeyay ama qoriituur loo sameeyay 8 kooxood oo ka qayb galaya tartanka kooxaha waaweynka. 8 kooxood ayaana ku kala biiray gruubyada C iyo D ee tartanka kooxaha waaweynka. Group C waxaa ku wada biiray kooxaha kale Jabada FC, FC A, Nigele iyo sidoo kale Al Musbah halka Group D ay ku wada jiraan kooxaha kale Happy Star, walaalaha xidigaha Kofi iyo Al Huda. kulanka koowaad ee groupka C waxaa la ciyaari doonaa 6 bisha Maarso oo ku beegan khamiista soo socota waxaana wada ciyaari doona kooxaha kale Jabada FC iyo FC A wuxuuna kulankan bilaaban doonaa 10 saac bar galabnimo. kulanka labaad ee groupka C waxaa isaguna la ciyaari doonaa 7 bisha Maarso oo ku beegan Jimcaha soo socota waxaana wada ciyaari doona kooxaha kale Nigele iyo Al Musbah waxaana kulankan bilaaban doonaa 10 saac bar galabnimo. kulanka koowaad ee groupka D waxaa la ciyaari doonaa 8 bisha Maarso oo ku beegan Sabtida soo socota waxaana wada ciyaari doonaa kooxaha kale Happy Star iyo walaalaha waxaana kulankan isaguna bilaaban doonaa 10 saac bar galabnimo. kulanka labaad ee groupka D waxaa la ciyaari doonaa 9 bisha Maarso oo ku beegan Axad soo socota waxaana wada ciyaari doonaa kooxaha kale xidigaha Kofi iyo Al Huda wuxuuna kulankan bilaaban doonaa 10 saac bar galabnimo. haddaba maxay kulamadaasi ku dhamaan doonaan soo saadaali laagna sar muuqaalkan sina share kare haddii aad nagu cusub tahayna ku soo bir page kan Salman Adala oo follow dheh maasanid.